بسم الله أن مجري وحال الله حسن يساق محمد وحن كلش تبدو الشباب وحن كبيري أول كوني سجالكي كبيرة توبرك وحن قاتي كذا كرباري قاتي وحي تشكيلي أنا جرى لي تشكيلي أفريت ونجر استعيت ونجر من الحسن حي تشكيلي غاسم يوم مثل ده محمد على الحسن يوم مثل ده محمد على الحسن أي تشكيلي واسي تشكيليين كاسيدين وحي يقدقين وحي وحملبا يقدقين مرك هذا الكود نكوري ما هو تهليل iyo atarab badan dadka loo marinayo wadaha saa sidii wixii aan ku galnay ay ka dhigayaan aakhirada wax intay ku soo joogto jannada intay ku marayso kaaga dhigayaan heesi kaaga dhigayaan 2009kii waa yaraa 2009kii waa si fiican marka 24 sano jira hadaan koob iyo waxay i wadaan iyo 10 sano mana diidi kartid hadalkood hadal saartidna biswa hooyada ma dilaysaa lagu dhawaad dilaysaa hadal ma keeni kartid xaq isdhig aday ku dhahaan waa isdhigaysaa hadal male bilaa hal mar hadla kun jeer ifaan lagu leeyahay hal jeer aan kula hadla kun jeer ifaan kor iman kartid ninka markuu wala hadlo hadaa miica laga dareemana هذا أو مخم محايد تريد بسوا ومخنتها أنا يوم تأمير كي مجلسي لما يسترم أخان لكاسين ترابي أخانا وحنا هين أني وحنا استكين جبا هين أميحي وحنا هين محمد داخ مرق منور iyo waxaan ahaynay maxamed kala jireesna oo xiran yahay maxamed maxaa la jiray afkeen kareeb xaajiri abdullah ibrahim iyo madax liiban madax kariye iyo xaajiri cunug saadaq la dhaw inta sanayn أنا وحنا قابل سنة عيرها وحنا أو ترابي عيريسا وحي اللي كانوا وأسي كركا كانوا أنا ويلي ما جرى مركا لأن يرتم سكوي عجرني أنا وحي وحي استكين وحي يعني استكين وحي جبع ساسا وكله سيني هدايا ساسا وكله سيني وحي وأسنا كانوا أنا أفرتين أسبوعين مركا أفرتين هوش والقليني هاد يوحي هوش القلب أنا إقاسن استكين يجبا أحمد علي محمد كل شيء قبل كبنادر قارهان حافظه هلواء كنا برباري دقمة الديني له الشباب وحان توبر كسوقاتي شباب هذا الدحاء وحي تبري مع الحاش اللي لا وهذا مارتان نولين ودنتي كدمر سنتك waxaan ku soo biiray 2009kii gobolka Shabeellada Dhexe waa lagu soo tababarkii waa ka soo tagay xagan ka soo tagay waxaan soo aaday Gaalkacyo 2000 waxaan soo aaday iyo 10kii waa qaybta maartay bastooladaha iyo bambatuurista waxa la soo tababaray qaybta amniyaadka oo madax jibinta iyo bamba tuurista qaabka dadka loo dilo iyo qaabka dadka bambada loogu tuuro raac hore iyo raac dambe inta waa la soo baray tababar fiican aan ku soo qaatay kadib markii xagga aan maaragtay ka soo tagay waxaan soo aaday 2010kii Gaalkacyo gobolka Shabeellada Dhexe waa balcad aan tababar ku soo qaatay 2009kii aan xagga tababar ku soo qaatay 2010kii waxaan soo aaday Gaalkacyo aan soo aaday Gaalkacyo markaan soo aaday team la aasaasay anigoo joogo xaafad waa Gaalkacyo waxa ugu soo dhaweeyay liibaan ciise leeyahay ay ugu soo dhaweeyay madax kariye leeyahay oo haddaba ka tirsan teamkayga
kadib markuu ugu soo dhaweeyay meeshii aday muddo 2 sano camal waxba howlgal ma sameyn gaalkacay dhexdeeda waxba howlgal ma ku sameyn aday 2000 waxba howlgal ma sameyn markaas 2010 iyo 2 ahayd waxba howlgal ma sameyn waxaan danay kawaanka geela oo suuq gaalkacayo aan shaqadeeda geela iyo waxba la kala faahfaahiyay anoo xaq wax faahfaahsan ka imaaday sidii anoo gaalkacay aan ku soo galay galmudug qaybta galmudug qaybta baraxley xagga aan ka soo galay shaqadii waxa liibar maartay oo geela customerka iyo waxba la abuuray liibana maartay shaqo galiyay kadib markii 3 sano 2010 iyo 3 2014 aan dana waxaan soo galay teamkan soo galay waxaan tashkiiliyay oo tashkiili leeri oo la hadal leeri liibaan oo teamkiga koow ka ahay jubbe maxamed abdullaahi jubbe saadaq amxay koow howlgalkii ugu horeeyay wuxuu nagu baroobeeyay bombo canuun oo nagu baroobay ciidan sahanka ahay isgoyska 5 star iyo maqaayada karaama oo ka bacdi aan u dhiibay liibaan ciise u dhiibay iyo maxamed sharafle ayaan u dhiibay gaagaalan wuxuu ka ahay sahmiye ka bacdi waxa lagu tuuray askar socoto argada galmudug lagu tuuray waxay ahayd adiga markaas 2010 iyo 2013 ciidan roonda sameynayay adiga 2010 waxay ahayd shanti ay ahayd xilli waxay ahayd adiga salaada maqribka iyo salaada cishaha ay inta u dhaxaysay kadib aniga maba sii warwareysan waa maqaayad baan shaah ka cabayay ka bacdi markii howlgal ka dhacay waa iska soo xarooday aniga xaafadda ayaan iska soo aaday wiilashii ay imaadeen howlgalka ma sameeyeen waa sameynay dhahan sahmiye saadaq wuxuu yiri maxaa ku dhimataan dhahay qarax hal wiil ku dhintay yiri wiil kalena waa ku dhaawacmay ma uu qabo markaas waa iska sii xaroonay shaqadiina kala qabsan dhahay teamkayga qaasim oo sheegay waxaan dhahay qaasim howlgalkeen anaga waa ka soo baxnay maxaa xog oo noo haysaa qaasim wuxuu yiri wax xog waxaan idin hayaa ragaan waxa ugu tala gashay oo maaragtay howlgalka aan u diray waxa ugu tala gashay aan ka rabaan dhahay qaasim markaas wuxuu ii keenay lacag $150 oo ii keenay xilli waxay ahayd habeenkii oo qaraxa oo ku tuureen wiilasha isgoyska 5 star iyo argada iyo maqaayada karaama inta u dhaxayso habeenkii ka hor habeenkii lagu tuuray habeenkii ku xigay oo wuxuu ii keenay lacag $150 oo warqad ayuu ii keenay bismillaah magacayga ku bilaabayo Liibaan Isaacdi wili ku dhashay xamar degan degmada Daynile waxa halkaas waxbarasho kaga galay dugsiga Quraanka waxbarashada dugsi hoose dhexe waxaan kaga galay dugsi ku yaal degmada Xamarjid xaafadda Xamarjid waxaan ka tirsanahay ururka al-shabaab waxa tababareeyay jooga xamar waxa la yiraahdaa Shire Maxamuud ka bacdi tababaraya waxaan noqday 2007 okay saad noqday oo qaraabada ayaa yiri maalmaha kamid ah yar qaraabo aan nahay maalmaha kamid yiri tashkiiliyay ilaahay shaqa ku hayaan nageen Shire leeyahay okay marka maalmaha kamid waa raacay wuxuu dhaanayo maaragtay kawanada maxaa qabataa camal waxa ma qabtaa yiri marka ayirinayo arin baa ku sheegay marayna isku hankan waa yiri isku maanay habeenada kamid ah oo wada hadalnay nimanka ururka al-shabaab ayaa kugu daraya qaybta xamar tababar baa lagu fidinayaa ka bacdi waa shaqo gelinayaa kadib wuxuu ugu wareejiyay Liibaan Cabdifataah waxaa la geeyay deegaanka Celash biyo dowladkiisa tababarka kaga soo qaatay muddo 2 bilood camal ah
kabacdi howlgalka koowaad waxaan fulinay aniga yar kale oo saaxiibkay ah wuxuu ku dhacay degmada Daynile gacanta koowaad aniga lahaa gacanta labaad waxa lahaa dheer Cabdikaafi waxaa lagu dilay sargaal oo ka tirsan ciidanka maxaan qayro ka tirsanaa dilka labaad wuxuu ku dhacay meesha la yiraahdo xaafadda Xamidiid gacanta koowaad waxa lahaa Cabdikaafi gacanta labaad aniga lahaa بعد مدة على جوي يا ديك وحاي مد كترسن شيء بدون واحد تحتاج هو كبعدي هالقلك كحيجي بمبو كتورني شيء إسكوس كبكارا gaari maray saddex qof oo reed ayaa ku dhacantay bombada labaad waxa ku turnay meesha loo yaqaan argada lambar 4 ninka ma sheegan inuu wax ku gaaray in kala gadan Cabdikaafi ayaa ku tuuray bombada kabacdi muddo ayaa ka soo wareegtay waxa soo baxay halkan iyo gaalkacyo samee loo kunisdeedi waxaa ku soo degay leeyahay Cabdiwali Maxamed Xasan magacayga Maxamed Sharafle Maxamuud Culisow oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab magacayga afgashadeen la amixay xarakada waxaan ku biiray 2015 dalashadii ay 92 meel laga joogaa haya 27 sano waa xagee Daynile dugsi iskool waxaan ka gaaray dugsiga labaad kadib shaqooyin aan iska galay xamaalada iska dugsi qoroon barto 104 haya kadib xamaalada iska ahay shaqada hilibka iska galay ururkaan ku biiray istakiin baa igu dhaliyay oo asna adeerkay shambiro tababaran soo qaadanay gaalkacyo ii soo diray Daynile degmada baadiye tuulo oo leeyahay yaa kuweyl istakiin de muxuu tababarka adii qaabka oo jabiska qaabka bombo tourista labadaas waa afar weergalado haya qaraxas afar baahan kookado afar dikate juba afar weede laba bomba iyo hal qarax iyo hal dila gacanta labaad haya mid kuwa saxaaq dilka ma bixiya dilka askarigu waay istakiina gacanta koowaad iska lahay gacanta labaad ana iska lahay bajaajana liba afdoon badila halka ayaa lagu dilay askari iyo mooto la bajaaja waa xagee lagu dilay agaar weyn adun xaaqay ay gacanta labaad lahayd taabo saddex haya askari shaqada waa daawo askari gacanta labaad ku dhuftay gacanta koowaad istakiina ku dhuftay saddex baa xagee حوتك واحد حوالك لبعض حوالك لبعض بمبادس هوتيل كتورنا هوتيل جلوبال حكيك وياه 5 ستار كده واي يجونكو حكيك هم جلسين شكله أنا بجاجة صارين ده حكيك هم جلسين ذاك عيلة ده قلبك لا قلبك واي حوالك هم قرنا تسع ده يقول شكله الله ساعده waxaan ma garanaa laakiin afar ay hanarto haye laaysa bombada ninka tuuray istakiin ya istakiin bombada tuura Nuur Xuseen Abdulqaadir haye
miyaan ku dhashtay degmada magaalada Marko shaqada aan qabtay shaqo hilib ta labaadna waa ii sheeg shaqo faryaamo 23 jir markaan joogay waxaan qabi jiray kawaanan hilib kawaanan ka shaqay jiray kawaan leeyahay tan labaadna faryaamo ku beeray أخوتي وتهذا كل شيء دينت حقيقة أخوانته كله يا ما شاء الله دينت ما شاء الله كوي قرآن ما حافظ يا قرآن كوي دميه كله كتبت أصحاب كتبت يا كتبت كله كتبت كله حديثي وصل حديثي كله ما أقنع قرآن كعيد قال كعيل لو كنت تعيتون كي ماذا يا مسلم يا كليه ماذا حي حاطط يا حاطط الشخو أنا شخص درت هذا ماذا يا مقولة يا يا كأخوني ذا يا مقولة تيجي على عيال حديثك على عيال مسلم قال كعي وحكوا سودكتي كمان لي ذوك سودكتي دلنيرت كمان لي أوكي نعم مسلم قلمك يعني أوكي هاي إن شاء الله قرنا الوقت لا يكون أفريتونكي هاي هاكا يا أبو صدري محمد دقيقة أبو صدري جروب كوحة اللي يوسو بيري حسن استكين جروب كوحة صحة كمتها جبا كمتها مرقة كمتها إيشك تي كلنواني يو ليوا مدح كري أوكي يا أبو صدري حتى يا محمد دقيقة يا تشكيلي محمد دقيقة يوسو تشكيلي هاي طالب حقا توبر waxaan qaatay isheeg qofka qaabka loo dilay isheeg ku dhaqaataankiisa qofka qaabka loo dilay oo loo dhaqaaqo qofka qaabka loo dilay hay sidee qofka loo dilay sidee qofka loo dilay qofka ama sii jeedo ama ku soo jeedo qofka soo adoo sii jeedo oo kala maano sii jeedo oo kala gadaashiisana ka yimaadid ama soo hor istaagtid intaas qofka lagu hubsiyaa waxa howlgal ah waxaan qabtay labo howlgal oo gacanta koowaad waa ka gacanta saddexaad waardiyanka ahaa waxay ka dhaceen mid toobaasay ka dhacday midna 5 star ya galmudug waa midna 5 star waa haka halka lagu dilay maxay kala ahaayeen ya dumar bay ahaayeen ciidan bay ahaayeen mid sirdoon ahay midna nabadoon ahay mid sirdoon waa midna nabadoon ahay magacayga waa Dhaqaale Cabdullaahi Xasan magaca xaqiiqa muruq haye waxaan ku dhashay degmada Ruwaay haye sanadka 94 صح waxaan ku marbaay degmada Daynile dugsi waxbarashay iskool ay u geeyay kadib waxaan imaaday magaalada Gaalkacyo sanadka 2018 bilowgiis halkaasaan ku galay arka al-shabaab waan ku beeray yaa ugu soo daray tashkiiliyey ugu soo daray istakiin ayaa ugu soo daray kadibna sidaas baan ugu beeray ayaga igu tashkiiliyeen annaga nagu soo beer lacaga lagu qorayaa annaga nagu soo beer wax saasay dhahayeen waxaan la fuliyey
هذه إلا أفر هالقلع يا مجاج كودي وأنجيها يا مال كان سوء علاي أساس كل فولين هاي سنوية marka ani waxaan gacantayda ugu fuliyay waxa ka jira laba howlgal ka dhacday suuqa iyo meesha u dhaaysa xirtoogta iyo cusbada agteeda labadaas howlgal ani wax ka fuliyay labadii howlgal baa aniga aan lahay gacanti dambe oo gacanti koowaad haystakeen mid kale tan yarta ogta agtiis ka dhacay meesha cusbada dhaxaysana gacanti koowaad liibaan lahay tii labaad aan lahay mid nin ganacsato waa lahay lagu fuliyay istakiin sheegay ganacsato waa lahay isfaana ma aqoonin midna askari oo hay meesha cusbada agteeda iyo yarta ogta inta dhaxaysa lagu fuliyay howlgal maya ninka waa meel uu fadhiyay halkaas aan howlgal ka fulinay kan labaadna cusbada agteeda miya howlgallada aad bajaajka ku qaadday ka warrama xarakada hadii ilaa afar howlgal meesha ku qaaday ilaa afar maraan ku qaada mar cabdullaahi ciise agtiisa iyo mar kaleeto isbitaalka agtiisa iyo laba howlgaloo kale oo ayagana xaafadaha dhexdooda le ah magaalada imise mudada baad xarakada bajaajka ku qaadi jirtay kuna keeni jirtay meesha ku dilayaan kana qaadi jirtay imise waqti dheer hadii ilaa 5 bilood camal ayaan ku qaadi jiray maxaa la siin jiray habeenka bajaajka markii aad ku kaxayso marba waxaa la siin jiray mar $5 mar $4 marba waxaa la siin jiray mar basi ayaa la siin jiray howlgallada caadiga ee gacanta labaad yaa ahayd lacag lagu siin jiray maya kuwaas wax lacag laguma sii jirin sabab shaqaa kuu socotaa la yiri shaqadaas markaa ku soo baxdaa lacag lagu bilaabayaa markaas fiican ku tababarato ayaa lacag lagu bilaabayaa aan kula shaqaynahay magacaygu sida waxaa la yidhaha maxamed cabdullaahi xuseen waxaan ku dhashay shabeellada dhexe ku dhashay jawaar waxaan kusoo barbaaray muqdisho waxaan jacalka al-shabaab ku biiray 2008 ayaan ku biiray waxay u tashkiiliyey axmed cali istakiin ayaa ugu tashkiiliyey asagaan lahaa tababarkan asagaa soo siiyey waxaan ahayn aniga iyo nin la yidhaahdo amaxow oo maxamed sharaf la yidhaahdo nin la yidhaahdo liibaan ciise oo la yidhaahdo madax kariye baa ahayn allahu mustacaan kadib waxaa imaanay marka tababarka xagga aan ku dhamaysanay waxaa imaanay kaalkacay waxaa nagu soo dhaweeyey isaga kooda hore liibaan nagu soo horeeyey liibaan kadib istakiin aa imaaday istakiin markuu imaaday baa waxaa haddana aniga soo maxamed sharaf la wacay maxamed sharafla markuu wacay kadib aniga soo wacay istakiin markaas baan imaaday kaalkacay imaaday tababarka waa kusoo qaatay waa kuu sheegay xamar kusoo qaatay tababarka xamar kusoo qaatay waxaan kusoo qaatay daniel iyo meesha la yidhaha warta nabadda labada meel kusoo kala qaadanay ya tababarka waxaa ku saabsanaa sida bistoolada loo riday markaas cunug yaraan awoodan ku qaadan ma lahayn markaas xamar waxaa la baraya sida taleefanka oo dadka laiskugu xiro oo loo soo indheendhee taqaanaa baaha markaas oo la baraya inta aan ka gaarayo heer bistoolad aan qaadi karo bistoolada ridisteeda asagaa inta igu baray xaafadiisa igu baray istakiin gurigiisa dhexda igu baray saan baa loo riday iyadoo faaruq oo tusay gurigiisa wuxuu ku yaalaa baraxley ku yaalaa gurigiisa baraxley ku yaalaa xabad ma ku jirin iyadoo eber oo tusay saanaa loo ridaa qijaleeda mujeedada saasana u dhacaysaa u dhah
marka aniga horta ninka magaciisa hadda maskaxda kuma hayo balse ninka yaqaano waa istakiin oo amarkii ugu siiyey oo korba igu tusay oo yimid meesha marka aan imaanay aniga asaa wada soconay ninka nin wuxuu ahay oo xildhibaan musharax ahay oo isku diyaarinaya markaas macnaha xafladda oo taalay marka xafladda aasaaskii buu wada asaga qaabka ya waa galmudug waaye agaarka 5 star ku yaala dabaqa igu soo dhicin baa la yiraahdaa sabta igu soo dhicin baa lahaa wuxuu ku yaalaa 5 star marka laaf ku yaalaa marka asaga oo idil wuxuu yiri ninkaas wuxuu yiri hawshiisa hal galo yiri adaan ku diraa ani adigaas raacayna ama wuxuu yiri liibana ku raacay koreyka wardiinayaan iyo muruq koreyka wardiinayaan adiga waxa sameeysaa gudaha marka gashay si tartiib ah labada gees ka fiiriya dhag soo sii oo dhaay meesha ka soo carab waa meesha baraxley galmudug sabta ay soo dheen xilli oo adiga galabna laga baxay habeen la galay badiyo kale markii aan shaqada soo dhameeyo soo baxay isla markii liibaan iyo ninkan amxi ilaa korna wardiinay noo soo raacay ayaga soo raacay istakiina ay horimid oo mooto kala watay sida waa macnaha u dhiibay sawiradiisu ay qaatay ay ard markaa saxanta ya afar xabaa qortay intaana kaga dhacday marka ninkii waa la aqoonsaday oo xaggii dhinacaas laga aqoonsaday aniga waa la fahmay waa la soo wacay diidii waa la ciidana dhigtay kadib waxaa la barnaamijkan iska jooji